بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا قيمها يا قاياها له وحنا فرحت قلينيا إنا إنيدنا وداقنا وإنيدين سو قدبينو muuqaalkani waxaa laga yaabaa marka hore aad aragtid inay yaabtid kani waa gaari socda waxaana la yidhaahdaa masjidka guura waxaana laga hirgeliyay dalka Japan sababta loo hirgeliyana waxay ka mid tahay sidaad ogtiin ciyaaraha Olympiga ee adduunka waxa lagu qaban doonaa dalka Japan 2020 dalka Japan oo heer sare ka gaaray tiknoolajiyada iyo maaragtay horumarka adduunka ayaa wuxuu ugu talagalay muslimiinta ciyaartooyda ee ka qayb gali doonta iyo dadka maaragtay ciyaarta soo booqan doona meel ay ku tukadaan maadaama dalka Japan uusan ahayn dad ay ku badan yihiin muslimiinta saas darteed waxaa la hirgeliyay masaajidkani wuxuu ka kooban yahay gaariga socda isla markaana waxaa suurtagal ah inuu tago meelo kala duwan oo fara badan masaajidku iskala furayaa sidaas aad u jeedaan ayuu soo kala furayaa albaabkaas ayaa laga gelayaa dabcan waxaad oran doontaa qolkan yar gaarigan sidee loogu tukan doonaa waxaad arki doontaa gaarigan oo casri ah inuu maaragtay baalasha la bixi doono oo iskala ballaarin doono deetana masaajidka gudaha u geli karaan ilaa dad gaaraya 50 qof oo muslimiin ah oo isla markaa ku tukanaya salaada waajibka ah ama salaadooyinka sunnooyinka ah sidaad u jeedaan waka uu iskala furay gudaha masaajidka markaad eegtid halkan baa gaari isma oran kartid dabcan banaanka waxa idinkaga muuqda weysada ayaa idinkaga muuqata waa masaajid kaamil ah oo wata wixiisii oo dhan wata marka korka laga eego calaamadihi ayaa ku qoran af carabi ayaa ku qoran waxaana ku qoran inuu yahay masjid lagu talagalay muslimiinta si ugu tukadaan Allahu akbar walaalayaal diintan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu gargaarayaa dad aan muslimiin ahayn ayuu ugu gargaarayaa horumarkan iyo wanaagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa baray gudaha masjidka sidaad u jeedaan waa masjidka weyn oo nadiifka ah gaarigana wuxuu tagayaa meelaha ay muslimiinta joogaan ama looga baahan yahay kolba la leeyahay dad muslimiin ayaa jooga alxamdulillah dadkii muslimiinta oo ka qayb galay furitaanka masjidkan aad iyo aad ayay u soo dhaweeyeen wayna la yaabeen sida dadka caadadu ahayd mobilkooda ayay wateen waad u jeedaan weysadiisa xataa uu wataa ma sha Allah muslimiintu way ku weysaysanayaan waa horumar cajiib ah u baahan in looga daydo gaar ahaan waxa loo baahan yahay wadamada muslimiinta ah inay maal gashadaan masaajidada noocan oo kala meelaha aysan suurtagal ka ahayn in masaajido laga dhiso alxamdulillah walaalayaal muslimiintii way ku tukadeen insha Allah ta'ala ana ilaahay waxaan ka baryaynaa dadka dhisay iyo kuwa dhisay ku tukan doonaba inuu islaam ku sugo assalamu alaykum wa rahmatullahi